kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka waayaha bulshada oo ah barnaamij toddobaadle oo idinkaga iman doona magaalada Nairobi. barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee iskaabulada ah iyo sababaha ay iskaabulada u yihiin iyo qaab nololeedkooda. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac. magaalada Nairobi ee dalkani Kenya inta badan dadka Soomaalida ah ee ku nool waxa ay u badan yihiin dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo qayb weyn ka ah ganacsiga ka jira xaafadda Islii. intooda badan dhalinyaradu waa kuwa garab rarata ah haddana lacagaha ay ka helaan goobaha ay ka shaqeeyaan ma ahan mid ku filan noloshooda iyo tan qoyskooda. dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ayaa guryaha ku yaal magaalada waxa ay isula degaan koox hadba qaabka ay isu fahmaan si ay isula baxsadaan qarashka kirada guryaha oo qaali ah darteed. gabdho iyo wiilalba uma sahlana in qof kaligiis uu ku noolaado magaaladan daruufaha badan oo jira darteed, taasi oo sababta inay dhalinyarada yareeyaan guurka qarashaadka ku baxaya oo aad u badan. barnaamijka waayaha bulshada oo ah barnaamij aan inta badan diiradda ku saarayno arrimaha bulshada ayaa waxaa mar aan booqanay xaafadda ay Soomaalidu degto ee Islii kula kulannay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinay qaabka nolosha dhalinyarada iskaabulada ah iyo sababaha guurka yareeya. walaalay dhalinyarada iskaabulada waa dhalinyaro dhowr qaybood ah, qaar faamiladooda la degan oo wali faamilkooda la nool iyo qaar iskood u nool. dhammaantoodna inta badan way xoogsadaan oo waxay isku dayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda kadibna sida iskaabulada uga bixi lahaayeen ay falowgeeda galaan. markaas way dadaalaan, saasayna ku dadaalaan qorshahooda iyo noloshooduna waa qaab noocaas. maasha Allah. maadaama adigu aad ka mid tahay dhalinyarada shaqaysata maxaa ka hortaagan guurka? walaalay waxay iga hortaagan noloshu hadda adduunka marba ka dambaysa oo isbedelaysa oo si adkaanaysa, challenges badan baa soo farbaxaya, wax walbana ma garanaysaa nolosha ka mid ah kor bay u socdaan. markaas waxyaalahaas baa iga hortaagan, waana ku dadaalayaa in aan dhowaan aan ka baxo nolosha kalinimada oo nolosha wadaagga ah inaan insha Allah ku biiro, waana ku jira hawsha dadaalkeeda iyo falowgeeda. shaqada aan hadda hayo aniga bay igu filan tahay, waxaan ka rajaynayaa inaan kor uga sii socdo shaqo aniga iyo familkeyga ku filan insha Allah aan gaadho haddii Ilaahay waana ku rajo weyn. caqabadaha ugu horreeya waa shaqada oo yar aan aad u badnayn, dadka aad garanayso oo yar laftigeeda waa caqabad kale. wuxuu ahaa dhalinyarada oo badan shaqa raadiska idana waa caqabad kale oo dhalinyaro badan waa waddankan ku nool ama magaaladan. marka waxyaalahaas oo dhan waa caqabado, laakiin haddaad u samirto aakhirka aad ka gudbayso aad levelkan oo kale soo gaadhayso. noloshii hore iskaabulnimada iyo noloshan waxaa u dhexaysa farqi weyn. nolosha markaad iskaabulata waxaad dareemaysaa caajis iyo daal aad u fara badan, laakiin markuu reer kuu joogo waxaad dareemaysaa farxad oo inaad meesha lamaanan ku haysatid. aad baad ugu farxaysaa markaa nolosha iskaabulada ka soo baxdid. waxaad dareemaysaa nolol wanaagsan oo farxad leh. aad baan nolol wanaagsan u dareemaya hadda. noloshii hore waxaan dareemayaa nolol ciriiri camal ah, laakiin maanta markaan guursado waxaan dareemayaa nolol aad iyo aad u waasic ah, tii horena iga farxad badan. aad iyo aad waxaan shaqeeya aad bay ugu filan yihiin aniga qoyskayga, waana caawisaa. nolol nuur leh ayaan hadda ku jira, waxaan ka soo baxay nolol oo muddo ku jirto. maxaa fariin u diraysaa dhalinyarada iskaabulada ah ee wiilasha iyo gabdhahaba iskaabulada ku ah halkan? wallaahi waxaan u dirayaa in la guursado oo guurkan aad buu u fiican yahay. waxa uu ku dhismanayaa niyadaada ayaa ku dhismayso. saacad walba saacadda aad isleedahay guurso waqtiga waa dib ugu sii cararaya. dhalinyartaan halkan joogtana waxay niyaddooda geliyaan badana inay guurkooda dib u dhigtaan, laakiin waxaan dheelayaa guurkiina ha soo horumarsada. saas baan ugu baaqayaa dhalinyarta Islii ku nool inay guursadaan iyo dhalinyarta dunida oo dhan ku nool. guurku waa shay aad u fiican oo sunnah. maasha Allah. gabdhaha iskaabulada way iska shaqaystaan, waa gabdho iska xamaasho, kuwa isla degan way jiraan, kuwa kaligood degan way jiraan. wallaahi wax dhibaato ah ma jirto iskaabulada sideeda ku doorsan tahay, waxba dhib ma laha. waayahay maadaama ay dhalinyaro oo wiilal oo iskaabula oo shaqaysta iyo gabdho oo iskaabula oo shaqaysta ay jiraan, maxaa hortaagan guurka? guurka waxaa hortaagan gabadhii haddee wax guur muhiim oo mustaqbal oo faa'iido leh u keenaya ma laha. waxay ka baqaysaa in hadhowtay rafaad iyo wax saas camal iyo wax dhaqan waayo camal ay la kulanto. gabdhaha iyagu guurka adkeeyo maxaa leedahay? gabdhaha guurka adkeeyo diinteena islaamka ma farin in guur la adkeeyo. guurka in simple laga dhigaa wanaagsan.
haddee dadba iyo sidiisa iyo fikraddiisa iyo ma-oonigiisa waay maadaama wiilasha shaqaysta ee magaaladan jooga ay xoogoo iska tabar yar yihiin gabdhihiina ay rabaan in xaflado waaweyn iyo amuuro kaleeto loo sameeyo ma isdhihi kartaa waa sidaas wax guurka kala yareynaya waa way dhici kartaa oo waayo qof wuxuu awoodin keen haddii la dhaho xaguu ka keenaya nafta waxay marka lama kalifo haddii wixii uu awoodi waayo wuu iska joogi marka danta waxay ku qasbaysaa inaad iska joogto gabdhaha kala badi laakiin wax iska daacada way jiraan wax ku dhaqda amaad weydaa inta lagu guursado oo rafaada baa niyadooda ku jirto wallahi nolosha qaabo badan ku maareeya ma sha Allah wallahi waan shaqaystaa maalintii habeenkii ma sha Allah gurigayaan u hooda inkastoo iskaabul iska ahay aan xas qabin wallahi nolosha si kastoo ku maareeya ma sha Allah waa sidoo nolosha iskaabulanimada wallahi nolosha iskaabulnimada horta ay u adag tahay dhalinyarada qaar oo ku adag tahay ma sha Allah qaar dadkooda la joogan Nairobi hadii la yahay ani wallahi inkastoo aan dadkeen la joogin iskaabula iska ahay noloshiina waa maareeya waan ku qanacsanahay okay waxa aad ka shaqayso ma ku filan tahay inaad noloshaada ku maareyso ha noloshiga ku filan tahay ma sha Allah waan ku qanacsanahay dadkayga u diraa xoogaa kasta wixii adiga iga badan aniga u dira dadkayga ma sha Allah maadaama aad shaqaysato cagsimid maxaa ka hortaagan inaad guursato wallahi sababo badan ay hortaagan ma awoodin inaan guursado horta muhiimadda waxay tahay inaad is bixisid waalidka bixisid kadib markaas noloshaada aan u heli kartaa guur iyo waxyaabo kale mana awoodin inaan guursado wallahi qaabsi ay tagaan ma sha Allah aniga dhalinyaro badan isla deganaan saddex qof camal waan isfahnaa ma sha Allah waxaan ka dhigi karaa male isfahma muhiimadda ku xiran tahay waan isfahnaa dhalinyarada qabiil isku maraadiyaan inay isfahmaan bis isku raasadaan dhalinyarada si dabeecadda isku keentiin bis isku fahmi kartiin laakiin sidoo kale ma qabiil waxaas ma jiro ma sha Allah maxaa rajaynaysaa waxaan rajaynayaa horumar iyo guul markii hore halkan imaanaysa sababo noocee ah ayaa u timid halkan waxaan u imaaday inaan shaqaysto noloshii maareeyo waxaan kula daarmi lahaa inay guursadaan waayo iskaabulanimada waxyaalo badan iyo dhib ku haysa magaaladan haddaan ka aadano dhallinyaradan waxyaalo badan waxaa jira yani caqabadooyin badan oo naga haysta markii xagga iskaabulanimada marka farqi badan ayaa u dhexeeya markii la ogaaday markii la sheegay aniga guursaday waxaan ogaaday in yani iskaabulada ay ahayd wax yani aan dhallinyarada u roonayn waa maadsantahay ma isbarbar dhigi kartaa markii aad iskaabulada ahaan jirtay iyo hadda noloshaada isbedel si fiican runtii wax farqi badan ayaa u dhexeeya markaan ogaaday markii yani iskaabulada aan ka baxay waxaan ogaa farqi badan ayaa u dhexeeya waagii iskaabulada ahaa iyo hadda ma la dhihi karaa ragga iyagaa guurka gabdhaha aan guursanin oo macaan lahaay oo howlo kala rabo ama xiriir iska dheer rabo ama aan guur diyaar u ahayn dhalinyarada ayaan guur diyaar u ahayn ma la dhihi karaa ragga runtii aniga dhalinyarada horta dhalinyaro salmid maaha sida ogtahay dhalinyarada qof dana iska haysa qofna waxaa laga yaabaa inaysan danhayn oo yani uu soo fahansanayba guurkiisa ogeyn waxyaalaha waxaana uu leeyahay faa'iido uu leeyahay inuusan ogeyn marka waxaa laga yaabaa dad badan oo dhalinyarada ka mid ah inaysan guurka fahansanin waxyaalaha macnaha uu leeyahay faa'iidooyinka uu leeyahay marka waxaan kula dadaanayaa dhalinyarada sidoo kale inay u degdegaan guurka والله سيابا kala duwan shaqada loo helaa qof walbana maxaan ku yiraahdaa waxay ku xiran tahay dadaalkiisa iyo sida uu asaga maxaan ku yiraahdaa dadka la macaamilo iyo qofku inuu yahay qof caabina ma sha Allah marka maxaa ka hortaagan inaad guursato maadaama aad tahay wiil shaqaysta والله hadda saacadan jooga isma dhahayo duruufo ku hortaagan jiro balse waqti Ilaahay wax ka dhiman yihiin صح qofkii aad isfahmi lahayd inaad wadiid صح sidayda waa maxaad kula talinaysaa dhalinyarada aan shaqaysanin ee iskaabuladana ah ee magaalada ku dhaqan wallahi dhalinyarada aan shaqaysan horta duruufo badan baa soo wajaha balse waxa wanaagsan qof mar hadduu dhalinyaro yahay in uu noloshiisa uu dabaro sifo asaga stresska iyo waxyaabo badan horta ka maxaan ku yiraahdaa ka dabarmaa mar hadda tahay qof shaqeeyo laakiin shaqadana shay wanaagsan waa qof hadduu dhalinyaro yahay inuu shaqaysto waa shay wanaagsan oo kula talin lahaa iskaabulnimada hadda maqasho waa cudur tan koowaad raggu waxay u kala qaadaan laba u kala qaadaan iskaabulnimada loogu badbaado tan koowaad rag waxay fiirshaan dhaqaalaha ragna waxay fiirshaan inay marka hore wax tacbadaan laakiin carabtu waxay tiraahdaa awal bayt bacdul maal marka ninkii isle xoogaa hanti samee intaadan guursanin gabadha waxba kaama dhibayso waxna maaragtay culaysna maaragtay ku saarime irsaaqadan ilaaha baxshay haddii loo soo noqdo xagga dhaqaalaha iskaabulnimada aad ku cunayso iyo midda uu reerka aad ku cunayso midda reerka aad ku cunaysaa maaragtay kuu qaras yar marka waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan ku bogaadinahayaa inay guursadaan
guurkuna maaragtay barakadiisu wataa qofka markuu iskaabulo yahay qarashka ku baxa iyo qarashka marka uu guri leeyahay ku baxa midka guriga uu ku isticmaalaa yar una baraka badan irsaaqadana ilaaha keenayo saasaan qabaa iskaabulada waxaan ku baraarujinayaa inay guursadaan oo aysan ka baqin maxaa la cuni doonaa iyo maxaa la heli doonaa guurku barakadiisu wataa hala guursado labo ilaahay wuxuu ka bilaabay labo marka hore labo saddex afar uu yidhi ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka bilaabay labo marka dhallinyarada waxaan ku baraarujinayaa inay marka hore ay guursadaan marka labaad ay ku xijiyaan irsaaqadu maaragtay waa sii badanaya marba marka dambe aad guursato marka sida bannaan iskaabulo waa cudur meesha aad kaliga aad ku nooshahay xataa nadaafadeeda iyo maaragtay jiifkeedu xataa waa cudur nolosha iskaabulnimada aad bay u adag tahay laakiin kastoo danta ay kuu kalifayso inaad baalkii ilaa aad ka heer ka gaarayso inaad iskaabulnimada ku noolaato maxaa qabataa wallaahi saad arkaysa hadda meeshaan ku dhex jirno waa daahida waaye kule daahidana ka shaqeynaa alxamdulilah shaqadina waa intaas كل شغل كنا كلا دويه من قفة بوحبو قفتا شغال وقفة بوقفتا جتو مرك الحمد لله داني داها أنا كشقيا والله نوري برتنولش يدرت أنا جوا نأكلي شيء معي فهذا أنا دقنا هذا أنشوفه مرك الحمد لله نولش يدرت وواحد أنا هكوفي عنك هنا هذاك أي فهمتهم كليه فأنا كنا سنت مرك هذا فهمت الحمد لله كنا الله كرتان ما دام أي جيران قبلوا إسكابولا هاي جرا يويل الإسكابولا هرتاجن إن ليش بتصير والله waxa hortaagan waxa ogtahay fahmi kartaa waxa jirta noloshu wuxuu baahan tahay in labada qof horto isfahamkiisi gudbaadan waxa uu baahan tahay wixii noloshu lagu dhisi karo noloshu lagu kaafay karo noloshu wuxuu kaaftoomi karto oo ladan loo sii baahan yahay markii aad guursanayso wax kasta ma soo socotid step by step dunidana arkaysan sax laakiin hadii aad dhadadiga janjaradan anigu korin waan dilaabsanaya taas ma suurta galaysa sidoo marka guursanaysan fikrada loo baahan yahay oo isku guursan maahan qofta guursanayso qof dumar mas'uuliyada qaadaysa sax qofta nolosha ina xakameey kartaa loo baahan yahay soo guurka markii lagu sheegayo hadii aad niyad aad gashato inaad maanta aad guursato aad ugu tala gasho qoftaada horumarka inaad gaarsiiso waa saxan tahay sax just marka adiga dhalinyarada hadda iskaabulada ugu badan yeeray u joogtaan wax kale maahan macala waqtiga ciilis kasta ma fahanti amba gabdhaha iskaabulada xaaladooda qaarba waa nooc qaar ka shaqaysanin qaar ka shaqaystaan waa kala nooc qaar ka shaqaystaan noloshooda way iska fiicantahay dad shaqaysan oo rafaadsan jiro laakiin guud ahaan iskaabulada aan ka hadlay iskaabulada ani way ila wanaagsan tahay kali nolol laga baxo inay noqotaan way fiican tahay laakiin dadka aan shaqaysanin oo Nairobi iskaabulada ku ee qaasatan gabdhaha way ku adag tahay waa gartay maadaama maxaa la dhahaa gabdho qaar ay shaqaystaan kuwana ay shaqaysan si u nool yihiin macnaha ma keliya u degan yihiin mise way isla degaan gabdhaha qaar way isla degaan gabdho oo shaqeeyaan oo keligood degan way jiraan laakiin intay u badan yihiin laba iyo waxaas iskula degaan soo saas way noloshooda gabdhaha ما شاء الله ما دام ويل إسكابلنا إجران قبلها إسكابل يهين والله وده بنعبة والله وده إسكابل كويهين مقالة محا جورك هرتاجن جورك وحكوه هرتاجن بريان وحلا جور سدا بجرين بابايا نمانك بدي جوده جابسي وحاسي إسكروان wax guur u jeedo mustaqbal u jeedo lama arkayo waxa kale waa gacan jiid intaas sana isla soconno waxaas amal waxa gabdhaha guurka ka reebayo laakiin gabar walba way jeceshay inay guursato maalinta ay soo qaan gaarto ay iska jeceshahay wax barashadeeda bogto nimankii laakiin nin diyaar ah badi la helaynin ma la dhihi karaa gabdhaha shuruudaha adag wata ayaa guurka cusleeya oo maxaa la dhahaa ragga ku adkeeyo ma la dhihi way dhici kartaa laakiin shuruudaha adkaa bariyadan waa laga tagay gabdhaha waxay leeyihiin bariyadan gabdhiya bateen nimankii yaraaday soo tii nin hesho bariyadan shuruudaha adag ka tahay inay ku xirayso ma maleynayay soo waxaasay tayeelaya inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijka waayaha bulshada oo aan toddobaadkan uga hadlaynay nolosha iskaabulada anigoo Samiira Cabdullaahi Jaamac ayaan idin la socodsiinayay inta aynu ku kulmi doono toddobaadka soo socdo nabadgelyo